أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. walaalayaal darsigeena diiniga ah oo kamid ah duruusteena ramadaaniyada aheeday waxaanu ku soo qaadanaynaa sabtul hilaal walow bi shahaadati cadl. bisha ramadaan marka ay dhalanayso waxa ay ku sugnaanayso hal qof oo markhaatiya ba Allah ka dhigay ayaanu soo qaadanaynaa. marka bishu waxay noqotaa 29 oo markii 29 ay dhamaato ayaa 30 la arki karaa. 30 markay dhamaatana taas waxa weeye isweydiin ma laho, cid walba markaas waa u sugan tahay. marka ru'yada marka la doonayo waa markay bishu 29 ay gaarto markaasi habeenkii 30aad la joogo. bil kasta oo maaragtay bilaha markaasi hilaaliga ah oo markaasi islaamiga waa wada sidaas. bisha ramadaan kaliya ma ahan, bisha shawaal waa sidaas oo kale ilaa bilaha dhamaantooda sanadka oo 12 bilood ah oo ilaahay uu dhahay subhanahu wa ta'ala: inna iddata shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard minha 4 hurum. marka waxa lagu ogaanayaa 29 inay bilo ku dhamaa karto. حديث لقوري أم سلمة وزوجة رسولنا صلى الله عليه وسلم وهي أمنا أم سلمة ايتير النبي عليه الصلاة والسلام آل من نسائه شهرا. نبي عليه الصلاة والسلام هو ينكيس أيوب بالكدارتي إنه سن أسوق قلين مرأة مو أي كدعضي تاسو ميلا بدنو كلا تغتي دونتان. oo nabi kaleey sallallahu salaam uu ka xanaagay ayuu bil waxa ku dhaartay inuusan midna u soo gelin. waxay tiri Salama falama malla 29 yawman ghadaa aw raaha. markii ay tagtay 29 maalmood laga bilaabo markii waxa weeye uu dhaartay ayuu nabi kaleey sallallahu salaam haweenkiisa qaar kamid ah oo uu doonayo inuu bilaabo ayuu ku jirmaado ama waa ku caraabay. waxa laga wadaa dahaba fadakhala alayhinna awwala nahaari aw aakhirahu. wa aada rasuulku alayhi salaam markaasuu habeenkii maalinta awalkeeda u galay ama maalinta aakhirkeeda wixii la yiraahdo. faqila lahu markaasa waxa la yiri rasuulka: innaka halafta alla tadkhula shahran. rasuul Allah waxaad ku dhaaratay bil inaadan haweenkaada u gelin. bishina hadda waxay joogtaa 29 dhamaatay 30kii joogtaa. hadalkaas waxa yiri waxay ahaayeen baa la sida la sheegay umuna Aisha ayaa arintaas tiri maxaa yeelay qofka markaas uu bilaabaya ayada ahaaday. markaas uu raanagu inna shahra yakunu 29 yawman ayuu dhahay nabigu. bishu waxay noqotaa 29 maalmood ayay noqotaa. markay 29 dhamaysato ayay 30 ku dhalataa. marna waxa uu dhahay bishaanu 29 ay ahayd ayuu dhahay rasuulku kaleey salaatu wasalaam. xadiiskaas marka waa xadiis saxiix ah oo umahaadka ay wariye Daawud laga reebo. روايات أو مسلم وليه أو حي هذا
ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيديه 3 مرتين بأصابع يديه كلها والثالثة ب9 منها. waxaa nabigu calayhi salaatu wasalaam gacmihiisa ayuu isku dhuftay 3 jeer 2 mar waxa weeye markaasi biasaabici yadayhi kullaha 2 mar marka waxa weeye gacmihiisa oo dhan ayuu isku dhuftay macnaha wuxuu ishaarayaa bisha cadadkeeda marka saddexaadna waxa nabigu calayhi salaatu wasalaam isku dhuftay 9 far oo isku dhuftay maartay 9 isku dhuftay oo hadda markii la yiraahdo 2 jeer markii la isku dhufto gacmaha oo farahooda la isku dhufto waad garanaysaa waxa weeye waa 20 marka kale markii la isu celiyene oo far laga reebane 9 weeye marka 29 ayuu ku ishaaray rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo arintaas waxa uu ku daray oo nabigu ku tusiyay asxaabtiisa ficil ayuu ku tusiyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam arintaas marka waxa laga ogaanayaa bil kasta inay maartay 29 ku dhamaa karto 30 ay ku dhamaa karto laakiin waxa laga xugminaayo saan horu soo marnay duruuseen hore inay tahay ru'yatul hilal bisha aragtideeda inay tahay معايا درسي وحانو سو قادناي دروسينا كميدها يجب الصوم والافطار برؤيه الهلال صوم كوا واجبايا افطار كنا وا سيدو صون hadii uu dhamaado oo shawaal la galasna waa sidoo kale ru'yatul hilal marka bilahan ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa wata waxa ilaahi umadiisa laga doonayna waxa weeye inay ru'yadaas ku amal falaan oo hadba sida ay wax u arkaan ay ugu amal falaan si kale intood oo markaasi xal naga kartana ma jirto marka wararkaasna wuxuu ku jawaabay shaharku inuu yakuunu naaqisan yawman waahidan faqad uu yahay oo hal maalin inuu nuqsaanayo soddonka uu nuqsaani karo wahada shahru naaqisun bisha hadda nabigu uu ishaarayeen inay markaasi yoon ay nuqsaantay markaasi wuxuu ku adkeeyay كفينكيس على علديسه إنه اسكو دفت رسولك عليه الصلاة والسلام 2 jeer asagoo markaasi fidinaya markii kale intoodna waxa weeye markaasi 9 uu isku dhufto asagoo mid ka soo laabaya marka hadda naqsigaanu wuxuu ka imaan karaa 2 bilood oo xiriirta ayaa naaqisna kala oo waxay yiraahdeen culimadu والنقص يأتي في شهرين متواليين لما بلوضو اسكو حقتا ايا ناقص ناكا وفي 3 وفي 4 ولا يزيد 3 بلوض ايا نقصان ناكرتا 4 نقصان ناكرتا لكن هذا 4 كم زيادة اي مركا ارنتو محاي تاي فالعبرة في كمال الشهر ونقصه برؤية الهلال فقط ارنتو ما هذا يساس تاي waxay noqonaysaa bisha markaasi nuqsaanteeda iyo kamaalkeedu waxa uu ku xiran yahay markaasi bisha aragtiyeedu ku xiran yahay maxay hadii la leeyahay 2 bilood ayaa naaqis ku dhala karto mid walba 29 ku dhamaa kartaa 3 bilood ayaa naaqis naga karta 4 bilood ayaa naga karta taas waxa ku cadeynaya rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam مدينة مركو تغي وحاو صومي 9 رمضان لي 9 رمضان صومي رسولك عليه الصلاة والسلام هل كليا ايو كامل نبو اسغي اسحابتيس لانه waxa asaga lagu raacayaa inta kale intoodna 29 markay dhamaatay ayaa markaas waxa weeye ayaa la afuray nuqsaanta bisha galeysane رحمد وي إلهي سبحانه وتعالى أمدي سأون حريصنا وأن صدنك اللوغو جيدين إيا مركاسي تحرير ليسكبه هنا إن مارتي بشر رمضان نشاط لويش الله صومه أو قفك يسيراده أو بشر محيبك عدبا يسابه لو أتين سقال بعض داسون تبس وايه ساسو يسيره
marka ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa xigmada og dadka qaar waxay dhahayaan maya bishii hore haday maaratay naaqis ku dhalato bishaan inay kaamil ku dhalato way ay leeyihiin beentood waay wax la iska alifaa wax tarimayso waxa weeye bishaan sida lagu nabadgelaayo oo markaas aan culays lahayn ilaahay iyo rasuulkiisuna u jideeyeen waa in bisha ru'yo maaratay lagu sooma cid kale intoodna cid maaratay ku kaliftay ama maaratay ku adoonsatay ma jirto marka diinta waxaan ilaahay kugu kalifin inaad adigu isku kalifto oo markaasi mawduuc tashdiid mar walba aad fariisato waxa weeye marka wax wanaagsan ma waxay culimadu ilaa man shaddada shuddida leeyahay qofku waxa isku adkay ilaahay yaa ku adkayhay dad waxa jira waxaan lagu adkayn iyo waxaan loo dirsanin wax walba ka dhigaya markaas waxa weeye dhibaato asagina ay ku abuurmayso cid markaas aan wax garanay oo sidiisoo kala asaguna hadana dhibaato ku abuuraya marka taas waxa loo baahan yahay in la ogaado bishu inay saas tahay hadii ramadaan dhalashadiisa ay tahay oo ramadaan shacbaan oo dhamaanayo iyo hadii ramadaankii lagu jiro ramadaan oo sii dhamaanayo waa in la ogaadaa weey bil ku dhamaahayso 28 ma jirtay 29 ka markaasi ee la leeyahay waa maaratay waa dhamaatay leeyahay ma jirta taas waxa arintu ay ka taagan tahay 29 markay dhamaato ay 30 ku dhalan kartaa 30 haduu dhamaadana bil 30 iyo koow sida bilahan hawaa'iga ah maaratay ay gaaradan iska samaysatay oo ayagu maaratay cabir jeebkooda ay sameeyeen ma ahan bilaha muslimku ma ahan bishaan wax ilaahay wata way subhanahu wa ta'ala hadana daahir ku ah hawadaas ku ah oo loogaga jeedo bishaan kale janaayo february mars aan leenahay wax loo jeedo ma ahan weegto wax dad iska tirsaday oo qaanuun loo samaystay marka ma ahan arintaas ina taas xataa aad rumayso midaan markaasi ilaahay nidaamka uu dejiyay aad ka booda ma ahan taas waxay noqonaysaa jahli iyo islaamnimadii lagu liitay noqonaysaa marka taasay arintu noqonaysaa Abi Bakr hadiis laga wariyay saxaabiga jaliilka Nufay ibn al-Harith leeyahay oo nabiga ka wariyay alayhi salatu wasalam waa dhaanagu shahra ciidin la yanqusani ramadaan wa dhul hijja waa dhaanagu alayhi salatu wasalam ciid labadeed bilood ma nuqsaanaan ramadaanka iyo bisha dhul hijja leeyahay رمضان iyo bisha dhil hijja la yiraahdo waa shahra ciid islaam nuqsaana weey macnaha waxa laga wadaa shahru ramadaan iyo shahru dhil hijja la yanqusani غالبا fi sanatin waahidatin bisha ramadaan iyo bisha dhil hijja hal sanad islaam wada nuqsaana weey maxay hada dhil hijja iyo maaratay waa bisha sanadka ugu dambeysay Ramadaan ayaduna markaasi waa bishii sanadka ku jirtay oo la soomaayo weey marka ina Ramadaan haduu nuqsaan dhil hijja nuqsaan maysa weey haday dhil hijja ay maaratay ay nuqsaantana Ramadaan nuqsaan maayo laakiin saaligu ogaa kara lama ogaa karo alashan waxa weey waxa saaligu ogaa kara hadii midalanba bisha Ramadaan ay kaamil noqoto oo midalan basadon ay kamilato bisha dhil hijja ina nuqsaanayto wala ogaa kara laakiin dhil hijja haday nuqsaanto sanadku waa laga sii baxayaaba oo hada ramadaankii la soo dhaafay ee ayada markaasi waxa weey waxba looma noqon karo laakiin inay haday ayadu kaamil noqoto ramadaankii la soo dhaafay inuu naaqis ahay ayaa la ogaa kara kaliya هاي لو حال laga wada law naqasa ahaduhuma kamul al-akhar hadii mid nuqsaan midka kala kaamil noqonaya culimada qaarna waxay ku fasireen ma yasaas macnuhu mahane sawowgoodu ma nuqsaanayeen cadadkoodu ha nuqsaan haduu rabo saayir bishan dhil hijja ayaduna waxa ku jira markaasi 10kii oo maaratay ugu horeysayo oo markaasi a'maalul hajki oo xoog galahay ayaa maaratay ku jirto oo hajki waa bishii hajka ayaduna wax badan ay ku soo arooray marka hadii lacala cadadkoodu oo nuqsaano oo 29 ay noqdaan
sawowgoodu ma nuqsaanayo laga wada dad asaas ku fasiray iyada lafteeda ila hadda nabi waxa uu iska dhahay alayhi salaam shahra ciid la yanqusani ramadaan wa dhul hijja wa loo ta'wiili kara sidaas bukhari muslim iyo abi daawud iyo tirmidhi hadiiskaas wariyay waxa kale la yiri sawowga oo dhul hijja kama nuqsaanaya laga wada sawowga ramadaan maxay leeyahay dhul hijja ayaduna wax badan oo cajiib leh oo xajka uu kamid yahay ciid ay kamid tahay wax badan ee maaragtay ay kamid tahay ashhur xurumka ay kulmaysa على فريضة الحج والعيد الأكبر كجرا سيدا رمضان كمركز فريضة الصوم هي عيد الفطر أيوه جيران أيضا فريضة الحج هي وحا كجرا عيد الأكبر أيا كجرا عيد وينتي كجرا هو حال وضع اللبضاض ومركز كلام الليتان لكن سيدا هراء يا اللو بديه لكن لبضا بلاد بواحد لوجي هاي إذا يهين لبض بلاد أو خير فربضان كل منها إذا يهين ayaa la ogyahay marka waxa arintu ay tahay si kasta diya wixii loo dhigo oo meel walba si walba loo dhigo inay markaas ay la budda ay tahay in markaas bil ay ku tacalluqdo ru'yada inay ku tacalluqdo saasa markaas ay noqonaysaa marka hadda bisha bilaha waa kala duwan yihiin bishaan ramadaan waxay bilaha uga duwan tahay ayada ru'yadeedu waxaa lagu camal falayaa qowl markaasi ruux muslim oo caadil kiisa wahdahu hadii uu arko baa lagu soomaaya markii waxa weeye uu ku cadeeyo qaali agtiisa oo qaaligaas xukmiyo waxa weeye waa lagu soomaaya laakiin haddoosan qaali agtiisa oo san u tagiro qaaligaas oo san xukmin asaga un baa ku soomaaya markaas iyo cid markaas u rumaysay dhahan culimadu laakiin markii uu asagu arko qaalina oo xukmiyo waa lagu soomaaya taasna waxa daliil ah xadiiski maaratay Abdullah ibn Umar saxaabiga jaliilka waxa uu dhahay tara an-nas al-hilala dadka ayaa istusiyay bishi oo maaratay Ramadan tusintaan waxa weeye war hal fiirsho inta laga fiirsho iyo maaratay ama yaba dhalatay iyo ma dhalan iyo saas weeye iyo waxa laga wadaa macnaha waxa ka wadaa marka taqaawala naasu bi ru'yati al-hilal bishi waa la sheegay ولم يشهد واحد بعينه قف إشيسا كو أركتنا لما أرك ساسو كوضا مركا ساسو دعضي وضدك ساس ورؤون هايان وهو فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته رسولك عليه الصلاة والسلام يا أشياء إنان أنو أركي عبد الله مركان أشياء فصام وأمر الناس بصيامه نبي عليه الصلاة والسلام وصومي ضدك روحوا أمره إلا صومه أيها أمر رسولك عليه الصلاة والسلام وحديث أبي داود إيه ابن حبان وريين حاكمنا مركز وريو صحيح يا مركز هذا وحي كسبناي عادل كريجيسة أي كسبناتي لكن عادل كاسو وهو كعدي عند قاضٍ أيو كعدي هاي قاليق مسلمين تا وهو رسولك عليه الصلاة والسلام قفك كريجيسة وإنه قال أتغى وقاليق سمركز إنه حكم ياوي لكن هذه قفهم أسوي إسكاركي هذا أتغى إيه مارتي إنت أرما يسويه oo ayaga laftigooda waajib oo san ku ahaynin ee markaas hebel arkay aan ku soona ma ahan markaas ama dadku ku soomaal dhihi maayo marka aan la haysanaynin waxa weeye markay sadon dhamaato cid markaas xugun iyo midna laga doonayo ma jirto marka bal hadii alla yiraahdo bisha ramadaanka iyo bilaha kaleentood شاهد كسبنانا يسه هي مارتي حق اختلاف المطالع عنه هدي إلهي إلهي مر والبعياء الله باهن كراهي عنه كسوق قادة دونا
درسينا دمبو أصيّ شيء درسينا سجالات أو بشهر رمضان كنت تعلقاي كمان من الدروس إن رمضان يدا هيدو مسلسلات هيدي أنت سنو وأجي هاي والله سبحانه وتعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.